way kulanti wanaagsan saaxiibal soo dhawaada waxaan rabaa in ay idin la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay madaxtooyada Soomaaliya shalay xalay ilaa ay waliba sidoo kale maanta aroortii hore waxa ka socda kulamo xasaasi ah loogana hadlayo xaaladda Jubbaland iyo waliba sidoo kale khilaafka culus ee dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Sambaloshe waa Cabdullaahi Sambaloshe iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qaybo badan oo kamid ah golaha wasiirada ayaana madaxtooyada ugu socday in ka badan saacado iyo waliba maalinba kulan xasaasi ah loogana hadlayay xaaladda Jubbaland iyo waliba sidoo kale qorshaha Axmed Madoobe ee uu damacsan yahay ahana markaas inuu xukunka uu sii joogi karo saddex qodob ayayna markaas isla meel dhigeen madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda ee markaas dawladda ee Soomaaliya Cabdullaahi Sambaloshe iyadoona markaas looga arinsanay ee ahaa waa qodobka koobaad taliyaha ayaa soo jeediyay sida markaas xogta aan ku helayno in wada xaajood lagu dayo Axmed Madoobe haddii uu diidona sida sharciga ah markaas lala aado iyadoona markaas dood dheer laga qaatay qodobkaasi ayaana madaxweynaha si weyn markaas ugu hadlay na tilmaamay in markaas waqtigan wixii ka dambeeyay aysan wada hadal waxa la yiraahdo aysan ka jireen maadaama Soomaaliya ay hore u sii dhaqaaqayso ama dawladda Soomaaliyeedba ay qorsheynayso inay hore u sii dhaqaaqdo oo meelo waaweyn ay gaarto laakiin Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale xulufadiisa ayaa u muuqda in iyaguna si weyn markaas ugu soo horjeedaan talaabadaasi sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sambaloshe ayaa mar kale wuxuu soo jeediyay in markaas dhammaan maamulada ama markaas madaxda maamulada la isugu waco halkaasina kulamo xasaasi ah loogu qabto loogana doodo xaaladda ama qorshaha Axmed Madoobe ee uu damacsan yahay kuna aadan inuu markaas siyaasadiisa uu meel mariyo ama markaas uu hirgeliyo laakiin golaha wasiirada ayaana qaadacay waqtiga ee waa markaas golaha wasiirada ee kulanka halkaas fadhiyay ayaana sida la sheegaya qaadacay amana diiday talaabada iyada ah inkastoo waqtigan la joogay Axmed Madoobe dhowr marna sidan oo kale loola hadlay iyadoona markaas waan wixii ahaba inta badan lagala hadlay laakiin ay mowqifkiisa ay u cadahay ayna tahay inuu markaas hirgashto ama markaas uu qaato talaabada ah inuu isaga hawshiisa uu sii wadan karayo dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay isaguna dhankiisa in wixii walaalnimo iyo kalgacayl ah ay u gacan haadinayaan rabaana inay markaas gogashu yimaado maadaama wax walba la xalin karo hadalna lagu dhameyn karo laakiin hadafka Soomaaliya oo ah inay aado doorasho qof iyo cod ah qofna loogama anjaanjaxayo ama loogama baqayo sidii ay hore ugu qaadi lahaydna waa loogu qaasinaya qof laga yeeli karana ma jirta oo ay ku aadan in markaas dalkan qof ama shakhsi uu hor istaago taasi oona waqtigan la joogay ay tahay in markaas hore loogu sii ambaqaado ayna tahayba riyada ama hadafka ugu weyn ee Soomaaliya maanta ay hiigsanaydo waxaana sidoo kale la isla soo hadal qaaday damaca Axmed Madoobe ee ku aadan inuu markaas dalkan qalqal geliyo iyadoona markaas dawladdu ay dagaal culus ay kula jirtay kooxda aas haddana markaas isaguna uu ku abuurayo jahwareer oo markaas aanan aad u wanaagsaneyn horaan Puntland ayaa sidan oo kale jahwareer u gulisay dawladda oo walibana culeys weyn ka saartay dagaalka dhanka ee kooxda aas kan ayaa mar kale ku soo biiray madaxweynaha ayaana qorsheynaya waqtigan la joogay sida wararku ay sheegayaan in talaabo culus loo qaadi doono nooc kasta ay doonto ha ahaatee wixii warar kale ka soo kordha kulamada sidaas oo kale bartanida kula wadaagi doona si shargare muuqaalka meel dheer nala gaarsiya waxaan idin ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan ka mid noqotaan saaxiibadeena sida maalinle wararkeena halkan oo la socda mahadsanidin